السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا جوا برواني بوي waxaan idinku soo dhaweynayaa xaflad doorasho ah oo lagu dooranayay nabaddoonka beesha Ajuuraan oo ah Siidow Cali Qoryooley oo maanta ka soo qayb galeen nabaddoonyaal aad iyo aad u badan daawasho baacan. waxaan halkan ka salaamayaa dadnimiyo jiritaankaaya siday u adkaydba taariikhda duniyiro diiwaanka lagu qoray diiwaanka lagu qoray awadiyo dadnimiyo jiritaankaaya siday u adkaydba taariikhda duniyiro diiwaanka lagu qoray diiwaanka lagu qoray وانا سيدا أجوران بقرطيادك يا البحر ما أبعده أنا سريمين أيولي يا أجوران أيولي يا أنا سريمين أيولي يا أجوران nabaddoonada Soomaaliyeed ayaa meeshan ka soo فقال وعمان بان أركا أساقود يفو وقعد أي أساقود يفو وقعد أجوران يرى أباب الكيو حقيو وجدو ليرتهي فقال وعمان بان أركا أساقود يفو بسم الله الرحمن الرحيم. kasoo qaybgalayaasha xafladan ugu yimideen nabaddoonada degmada Baraawe oo ka kooban Soomaali weyn oo dhan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bacdu salaam waxaa sharaf weyn inoo ah meeshaan oo lagu caleema saaraayo nabaddoonka Ajuuraan inaan ka soo qayb galno dhammaanteen intuu Ilaahay waafajiyo. cid kasta oo Soomaali ah markaan ka soo qaadno Soomaali oo dhan abaadhaanada waxnaa qayb ayadoonan ahayn kaas caseeri raas kaambooni inta ku nool Ajuuraanka maanta waa la caleema saaraa la leeyahay nimaana waxba ku lahayn ma jiro taas oo taariikhdu ay qorayso nin kasta ee Soomaaliya haddaysa hooyadiisa ahayn ama aabihiis uusan ahayn inay ayeeydiisa ay tahay Ajuuraan ayaa qoran wax laga been sheegayana maahan taariikhda cid kasta oo taariikhda akhriso ama ka sheekeyn karto jiritaanka Soomaaliyeed askunka inta ugu badan inuu yahay waa laba qaybood Soomaali sideeda labadaas qaybood kaliya ka kooban tahay Soomaali waa sagaalka Soomaali iyo Ismaaciil Jabarji oo daarood loo yaqaan Soomaali horta intaasi ka kooban tahay ugu horeyso faraca ugu badan oo maanta Soomaaliya dhan ka soo wada jeedo ama ayeeydiisa aad ama aabihiisa aad ama adoogiisa aad ama hortiisa dhasho ama ayeeydiisa dhasho ama eediisa dhasho oo macnaa dad Soomaaliyeed oo dhan macnaa qayb laga dhalin jirin waxa kulansaday waa magaca maanta caleema saarkiisa loo fadhiyo nabaddoonkiisa waa nabaddoonka Ajuuraan. marka waxaan leenahay maadaama taariikhda intaas tahay waxaan kusoo gaabsanaynaa cid kasta ee Soomaaliyeed oo maanta ku dhaqan degmada Baraawe waa in ay la shaqeeyaan dhammaan nabaddoonka la magacaabay ama awootu u ah ama ayeey u ah ama awoow u yahay sidaas darteed dhammaan waa inay la shaqeeyaan nabaddoonada iyo cid kasta ee khusayso hadday tahay maamul iyo hadday tahay mataqaanaa wada dhaqameedba iyo hadday tahay bulshada Soomaaliyeed dhammaanteedba iyadoo nooc walba ay leedahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
السلام ورحمة الله وبركاته. هذا waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha weynaa Allah weyne Cabdullaahi Xalale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إلهي حكم كيس إلهي ما شكر لنا كبعد بيش يسوق كأنه يرتدد كلام المشى هذا كسر غيب قرياشة ولا كستا مقع يكفر لنا بسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cabdikariina taariikhda xooguu taataabtay dadkuna dhalashadiisa iyo dhaqankiisaba waa isgaranaya. qofkii aysan ujuuraan hadda ima dhalin dhihi karta xaq rabbaaniya ay ku leedahay ummadda usoo horreeyay. xaq rabbaaniya ay ku leedahay oo lagu xusuusto. raas casayr iyo raas gambooni intii ka dhacayda ninkii meel ka bartay ama dhul badan ka bartay taalla kasta iyo ceel kasta oo qodan ama meel ku yaal howlaha ujuuraana la yidhaha ujuuraana marka dadka dhan oo hadda isu haysta anaa meeshaan joogi jiray anaa ku horreeyey xaqa ugu weyn oo lagu xusuusan karo oo aabbe iyo hooye u noqon kara meesha ujuuraana. sababtoo dadku wuxuu hadda meesha dhaxal looma leh dhulka dhaxal looma leh nin walbaabana wuxuu sheegan karaa meesha u noolayso laakiin waa kaaga soo horreeyo anaa nooleeyo anaa waddanka joogo waddan baa soo degto aalays yaraa moogta hadda iyagoo dadka dejiyey ama ka horreeyey ama u xalaaleeyey ama geedaha uga guray ama ceesha u qodo waay ayaga ceesha u qoday ceeshaan badda ku teedsan oo la cabaya oo niba magac ula baxay ma dadkaa qotaa haddee weli qodna ujuuraana marka sharaf iyo banaaday noo tahay hadda ninkaan aabihiina nabadoon waa ahay oyaha waa ahay ganacsi waa ahay afkii aabihiisoo kalan ka rabnaade inuu ku shaqeeyo. dadka badanki waxay leeyihiin ujuuraan waa 5 qofoode waa 4 qofoode maxay rabaan leeyihiin haddana cabdikariin waxay soo raacna banaanka adinku waxaa dadka saas laha ma diidin hadda ujuuraana diidan waana xaqiiq waay tunitoore kuma iyo gacan dheere ujuuraan waay wax qarsoon ma iyo wax iyagu aysan sheegan ma annaga dhanna haddii hawiye lala aadana waa curadkii oo isagaa weyn soomaali haddii lala aadana waa ninkii ugu soo horreeyay dhulka waa isdhexsha soomaaliya oo dhan dib la keeno war ceel ka qodan haddeer intaad xeeb ka taqaanin oo ujuuraan qodin ma jiro lana heli maayo. marka xaq rabbaaniyay leeyihiin awalna haddee annagu waa ogeyn intayada caqliga u saaxiibkaa ama dhaliyada taqaano waan ogeyn oo waxay noo yihiin waa naqaan waxaan u nahana waa naqaan. haddana odagu awalba waa shaqaynayay waa joogay laakiin hadda waxa u kordhay sharafaa la saara haddeero nabadoonka beesha ujuuraanka nabadoonka beesha ujuuraan marka magac dhowma tuusi nimankii ku diriraayay meesha la yidhaha uganda ku diriray yay ahaayeen ujuuraan ujuuraani waxay ahayd iyo ujuuraan diray kulligood saasay ahayd. waxaan leenahay aliyow nabadoon awal waa ahayd waa shaqaynaysay haddana aan ballan qaadaynaa inaan kula shaqeyno sababtoo awalada gurika ayaa ka shaqeeyahayn adna gurigaaga anaan ka shaqeeyahayn laakiin arrimaha bulshada oo ijtimaaciga waa kaala shaqeynayna waxaan marka intaasaan kusoo koobaa taariikh ujuuraan waxna ma aqrin karto waa waalid nin kula murmi karaana ma jiro soomaali waa hadda moogiyo maarag waa wax gooniya moogta oo inkirka laakiin cidda kaleona waa soo horreeyey ayagaa ka horreeyey inta kale hadday ka horreeyey inta kale haddii laga horreeyey ayagaa ka horreeyey waa la hubaa cid dhiig karta ujuuraan uga soo horreeyey waddanka ma la helaa horta haddii la hela been sooma
saasaan ku ognahay uga shaqeeyaynaa sharaf allah kuu yeelo adigana shaqada allah kuu sahlo kuwa ku keena goobtana kuwii kula shaqeeyaa noqday kuwii kula shaqeeyaa noqday asalaamu calaykum أنا وعن قصة دلوية يا نوضان مع مقام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمان سوق القلياشة أنت سوق الشيء أي قام يا قلياشة نوضان ماذا يلا يرى يلا ما ودينك سوق الشيء عقلة شرفت له لما نوي جري على مسار نوضان بيشا فرجنا كل بوال شكاي عبد الله ران يا شكاي عبد الله شكاي أجوران دايم شك شك ولا بالي ما واحد شكاي وما بعد أنا هو حكوس أقرني بادية يعني كسو بيدانه يو كسو قرني يو كسو برني وحنا أركيدي ميل عيل قضايو أما بكار قضايو دليل وعصنايو أما ميل قبل قضايو وعلى كيس علامة بكسو كيسا مركز وحلينا أبيال كان وياشين وحلينا محي حاجة واحد وأنت الدنيا عندك راجل أمان iyo taariikh taasaan ku filan ba magaaladan maxaa la yidhahdaa barar tunni ayaa ugu soo horreysa la yidhahdaa waxba kama jiranaa soo horreeya tuna waa timid jiranaa ugu timid inta kale ka horreeya yaa inkiri kara kutubaday ku taallaa buqatul a'maal fi taariikh as-Soomaali ninkii arkay ha arkato taariikh ninkii akrista ha fiiri marka taariikh waxaa waaye ammaan iyo wax sheeg waa ka dhagi waxaan soo dhaweynaynaa nabadoonka cusub oo tolka soo baxsaday waa ku faraxsannahay waa soo dhaweynaynaa waa la shaqaynaynaa maamulkana waa la shaqaynayaa maamulka iyo odayaasha iyo deegaanka oo dhan إن شاء الله تعالى سوى ناكسن يعني مرشقيننا قرب يعني سيننا وحلا شاكين كرق معها ما نك شاكينا يعني تاريخ جوران قف كسر وقت درسني إن كستو شاكيت اللي رابو شيء كرو لكن هذه تاريخ اللي فيه بقرطوي ده جوران يعني أنا أمام المجرى قبل ده قبل ده marka juraan qaybkasadin waay wadankan asaas kale asaan ugu horreeyey asaan waalid ah in la xushmeeyo la darajeeyo fadhig looga kaco waa isaahilaa haddii la xushmeeya marka waa yaryahay iyo waa ku yaryihiin iyo ma jirto hal qof allah ka dhigo haddii inta oo dhan alahan dhan hal ashraaf meeshan u soo galo ninka ashraaf ay leeyahay waa la qadarinayaa waa la weyneynayaa doqoya leeyahay maxaa waaye asakaligiis dambe waaye maxaa intaan qof asaga la ku wataa oo markaas oo qadarin meel buu qabiil buu saaraya ajuraan saas oo kale waaye insha Allah ta'ala talada iyo ducada iyo way aragnimada iyo tusaaleenta aan ugu dambeeyno walaalkeena isagan oo dhalinyarada ah maanta halka loo dhiibay dhammaan isagan waxaan ka rabnaa markaas inuu isagana halkaas saaray in soo bax Allah ka dhigo asagana ha dadaalo insha Allah ta'ala wada tash qabiil waxaa loo baahan yahay in isku wado kii xun iyo kiisan oo aan markaas la kala socon oo markaas la wanaajiyo anigana gacan garabtaada nahay gacantaada midigaan nahay insha Allah ta'ala nabadoona ku soo dhawaaw waa Allah ku barakeeyo Allah inta soo doortay inta soo beesay waa ku mahadsantiin waxaan leenahay waa casibtan insha Allah ta'ala maxaa yeelay ninkan waxaa la siiyo qabiil Soma nabadoon waa ganacsiga Abdullah Raan sheegay in aan ka seyno arkan ma dhabaantan waa la shaqeeyay waa inta inta ku noolaa inta ku dhintay inta ku dhashay marka khayr rajaynaya insha Allah ta'ala wa mahadsantiin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
nabadoonka maxamed haddana nabadoonka waxaa u dhiibayaa garow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. odayaasha warmaawdiinka dhalinyarada haweenka kasoo qeybgashay caleemasaarkan reer ajuuraan awowihii waddankan Soomaaliyeed oo maanta lagu caleemasaarayo oo ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa kalgacal ilaa baa ku soo dhaweynaynaa ilaahay idinkiisa diiraa laga noqdo waan la shaqaynaynaa reerkan abtiris uma baahno reer hebel iyo reerkaas ay wanaag iyo sheeg uma baahno wax kasta waa ka dhan yahay insha Allah aniga meelo badan aan soo maray oo hooygaas galbeed ah meel kasta aad tagtid waxa lagu leeyahay meeshan dhagax ayaa dhigay eelka ayaa qoday reer kasta reer ajuuraan qoday baa leeyahay buurahan galgala leeyahay oo dheer buur kasta agteeda aad tagto oo barigaas ah meel alla meesha tagto wax loo dhagax inta dhigay ajuuraan baa leeyahay waxaan maalin baa nin oo reer barigaas ah waxay niyo adig meel kastaba ajuuraan baa dhiga leeyahay aniga taajirna markii hore ومدح إسقاط قاضي أو إبكى بدل حاجات جنبه وكتجي ميل يرادو يشك عيسى ما أكثر تجي بورتن ديلا اللي هوستين وعن بركي عيل لو أجوران ولا لعب وأنت أصعب بقى ويا وهرنما إنسان عروي وحيا قضي وهو الأجوران بقى مركز ما شاء الله تبارك إلهي بركيه يشك غير الله رنسي إلهي ذكي وح أو يشك ميل حد إدان لو أقول أما وحي أقول من نمجد إلهي ذكي إن شاء الله أنا قلت عم فربك بسود وين على مود ضمنا وعكس أولا حتى كون أنا علمه عرورة بقول ميل قدني ميل بقول قدين وح بقول قدين وحكسوا بحيي والله بيعيد الشيء ما علمي يربحني قاعدة ذهب كسب قاعدة ذهب قاعدة وحلونا وأنت سنو قرب وجدتي بان صبحي مركز قاعدة بان قاعدة وقاعدة حبيبي وودني وحن غير غيرك ولا لت علمي رحياني علمان أمن سديد جري طبعا قميلة سعد مركز غيرك وجيني واحد وذي أو وهي بقول عرب أو وهي برتنا ميل صبحي بمان أبو قلب وحويل دو قلب بريه الجولان الحين جري ويقول شيء دوي marka ciidan had kulli sheeg uma baahneen sheeg nabadoon horta anagu waa kula shaqaynaynaa hadii ilay raala ka noqdo si kastaba waa war aabahadna wuxuu yahay nabadoon sheeg ada aabahada waxaan ka rabnaa waxyaalo badan oo naga qaldan inaan toosisid baan ka rabnaa inaan tacliimisid baan ka rabnaa aniga waxa way iska soo galan daaqada ka qabsan هدي إليه على كنا إن شاء الله وكل شقينا وناقب وكل شقينا إلهي عيدك إن شاء الله قاع مفرم كل شيء دوينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور وحاج مديقة يا أبو مياه دقمة وريلها معنا نورية صبت وصرفيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلى أسكشاك وأسكرها ولكن الكلام واحد جاب الواحد بيش ما اللي بصراي قارئ بيس قرية على سو أخري كاس كبول يو كاس كاسر يو نهيس قول يو تلتني يو مهن تاريخ ده هرا لا هلا نقولون يو إبكرين يو هرا سو شغل أنا كم قد مرة كاس لم كلمة يمير أنا كنت رغبا مركي كوال بدون كأسوب وصدويرنا والشغيرنا لبنتهم بحال هاي وحين أوصل هوني ما أنت إلا شيء واقف واحد ليس مقصادين إنجيلان بصور مالتنا وجرت ما أنت وليس هوني
هوش يقول من ملوء من الجيران ولو معه نبدأ سوماليا تاي نبدأ سوماليا إن نقطة الغربة سوماليا إن كم نبدأ ليس الغربة ما الجيران على الليدر يو جيران الليدر يو معه نبدأ سوماليا دواي سأدا وهيكم بالله بالحين اللقوسار هل كاس كلام كابل هاي قال هل وعروس هاي كلان وعنوصارين هاي وحالنا هاي وكسر أولين هاد مركي كوات صاحب كان واي أبا تاريخ ده اللي هاي دكي أو أبا ياشان كوغان يتسفيا أو كجرا واي شغال لغا ربا تنبيلان إنا تالي ده بنا كنا كتا لغا ربا بيل كستر وحال ربا إنا هوغان لهات هدي واكستر لو باهناي وقتي أنا دبعتوينا أو دبكة بدن دبكنا كحلسو Soomaalida in la jirto waa laga rabaa baraha shanta Soomaaliya degan shan Soomaali ina ka mid noqoto laga rabaa nibadoo Soomaaliyeed ina naga tan waa laga rabaa walakin waa ku shaqeynayna garabkaada taaganahay waan waducan waa ku dareynaa assalaamu alaykum warahmatullahi يا نبضات الدرير وين المرسل عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم ريال احد من برار ومان تجوين ريالك سلامتين ديرتوني انا واحد قبته انا انت نوغتي ما حد الهي باسكله ما انت اجوران شلي horta ma ahayn ajuuraan waqti badan muddo badan qarnagan aad ku jeedo meelahan Soomaaliyeed nin ajuuraan ku hurooyay ma jirayna hasi ahaato khayr ahasi walaalahayna waay walaalkayna waay hela loo dhiibay helkaasay ilaahay garabka laaga walaalkayna tahay garabka laaga ولكن كرب كوا تاجنا إن كيل شقين ديارة أناه وح الله له وحنا كذبوا سداس يوم مع السلامة نودي في أنا وحكوا رجلا يا أبو توفار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كسوق قليالك شرفت له وما أرسلتي سيدا أسوأ جيبتين حفظت عن قروح قبلن وقالوا على مسارة ينبضون كباش الجوران سيدا أسوأ جيبتين وشرفت له وأنين مضل أبي سيدو قريولي بالده جري أنو أدو بيساس في عن أقانا وأنا حتى كل نبضون في عن وأبيسني في عن بوهاي أسوقنا وكسي في عنادنا أنت إيجوه الرئيس هذا لما يسي هذا البدن حال مبوحيه نبضون كا وجوران كليه معه سومالي وين واي وأنا نبضون سومالية مركا نبضون سوكع هذا عافمات قبا أنا ولا شرف له قضيتني معه قرب له أيام كل شقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوق القياش أمان حفلة الشيء وحنكو سلامة يا نوال فلسطين كفدي إن شاء الله تعالى ورواد ما ولا دمي ولا ليه قدمي ودوني قدمي أن وحواي نودونك ما أنت على مسارة على سيدو غريولي
إلهي حلك الغوصاري الله كون قرب قلو حدنا ما أنت الحمد لله رب العالمين سومالي وردن أياكو داونيسو سومالي وردن أكو أكيسو انتان واحد دلي الجوران دلي نوغي وحان الجوران دلي الماء الجوران دمان سومالي مركا حلك الغوصاري قلبك الله قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنو مان تقوشان قرح البلد نسولوي ثبتنا قدوم كبيشة أجوران كل أجوران ومدبر ما أنت حقول نوح وتاريخ نوح ما أنت لقى عليه مساري نكي أبوه وين هاي ومثلاي هل السيدو وريولي ما أنت ماشي لقى عليه مساري هذا أنا أفرسنا وأنا سولوينا وأنا شغينا إن شاء الله تعالى عدي إلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ودونا سوماليات halka ila fadhiyo aad ku salaamaya salaanta 114 salaanta aadkeeda idin salaamaya anna sidoo kale diyaar waxaan lahayn inaan idin shaqeeyo wax walbo maadaama aanu ah nabadoon Soomaaliyeed ah oo Soomaalidan u dhaxeeyo diyaar waxaan lahayn inaan idin shaqeeyo si wanaagsan wax walbo inaan idin qabto idinkan ila qabatiin diyaar baan u ahay darteeda waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysto halkaa la ii dhiibay assalaamu calaykum wacalaykum meeshaan ugu dirayaa arsigayga cali siido insha allah arti macaan ilaahay kula garab galo mas-uuliyadda maanta ku saaran waan kuu soo duceynaynaa insha allah dhammaantiin sidaan ugu imaanay meeshaan si farxad badan insha allah assalaamu calaykum aad iyo aad waxaan u duceynayaa nabadoonka beesha ajuuraan oo maanta lagu wareejiyey xilka nabadoonnimo waxaana ku leenahay shaqadaada si wanaagsan u gudo insha allah daawadayaal idinkana haddii aad doonaysaan inaan idin duubo fiidiyo aad iyo aad tayo leh iyo xaflado aroos sawiro wax walbo aad doonaysaan igala soo xiriira telefoon nambarka eber 6176479 haddii aan idinkugu celsho eber 6176479 shaashadana waa idinkaga soo muujin doonaa mahadsanidin waa walaalkiin barwaani boy وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم أنا وقف عند هذا أقول لي ماشي نقول أنا انتهي أنا الله أنا ورسول nabadoonka cusub ee beesha ajuuraan cali siido qoryoole waxaan leeyahay mabruuk alfa mabruuk asxaabey iyo daawadayaal waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan noo sheer galaysaan likes saartaan subscribe-kana waa dhankiina hanaga ilaawina waa anigoo ah walaalkiin barwaani boy nabadgelyo